shan soonka jebisa dii la faahfaahiyo way badan karaan laakiin inaan kuu soo koobaan doonayaa markii faahfaahinteeda loo baahdo waqtigeeda wey waxa koowaad ee soonka jebiya arridda qofku diinta inuu ka baxa wey muslim buu ahaa uu soomanaa hadduu gaaloobo oo diinta ka baxo soonkaa waa jabay maxaa ka dhalanaya hadduu isla maalintaa dib u soo islaamo oo soo noqdo maalintaa wuu qallayn oo way jabtay soonkeedii saas darteed islaamnimadu shardiba idin u asaxo gaalnimaduna way jebisaa hadday dhexda ka timaado haddayba jirtay markii horena inuu ansaxay diidaa taas waa qodobka koobaad qodobka labaad waa inuu qofku kas isaga matajiyo qofku mantag hadduu ka yimaado laba mid unbuu noqdaa inuu soo dhaafo san iska keenin ama markaa hayn waayo ama iyadoo isku taxallujinninba inuu hayo ama kadiis baa kaga yimaado inuu soo dhaafo iyo isagu inuu iska doondoono iska keenkeeno hadduu soo dhaafo soonkiisa waxba uma dhimo hadduu isagu iska keenkeenase soonka waa jabaa uu jabaa macnaheedu waa dambaabtay maaha inaabad xanuunsantooda cudurdaar leedaha dhici karta laakiin soonkii wuu jabayaa wey in qofku kas mantag saa keena nabigaana saa yidhi sal ly slam qofkii mantag soo dhaafaayey wax qadaa laguma leh qofka iska matajiyana ha qadeeyo ayuu nabiguna faray sal ly slam qodobka saddexaad ee jebiye soonka waa gabadhu inuu dhiiggii caadadu ku dhaco ama kii umusha dhiiggii caadada iyo kii umusha midkood hadduu ku dhaco ayadoo sooman soomkaasi waa jabayaa iyadoo dembi kuma laha laakiin soonku waa jabayaayo marka hore hadday caado qabto ama umushii dhiiggii ku jirtana kama ansaxo hadduu gadaal kaga yimaada iyadoo soomanaydna soonkaasi waa jaba qodobka afraad waa cunniya cabitaan toos ah ama dadban cunadii cabitaanka toosihii waa kuwii laga qaato afka oo meesha caadiga iyo dabiiciga laga qaato haddii qofku wax cuno ama cabo soonkiis waa jabaya cunniya cabitaan dadbanna waa wixii cabitaan iyo cunno ah ee laga qaato waxaan afka ahayn waa sankii biyaha kor loogu jiiday ay dhuunta ku dhaceen ama dhagaha haddayba u duleelaan intii wax lagu shubo ay hoos u dhaadhacaan ama jirka kale meelaha dhiigga ah nafaqada iyo faleebooyinka la ragmariyo ee booska cuntada iyo cabitaanka galana waxaan leenahay waa cunniya cabitaan dadban oo toosna afkii caadiga ahaa loogama cunin oo loogama cabin wixii ay qabanaysay cunnada iyo cabitaanka afka laga isticmaalayna way qabanayaan iyagana waxaan ku soo ururinaynaa cunniya cabitaan toos ah ama dadban qodobka shanaad ee soonka jebiyaayey waa gudashada shahwada tooska ah iyo midda dadban shahwada tooska gudashadeedu waa xiriirka gogosha iyo galmada ee rag iyo dumar dhexmara ama xalaal asalkiisii ahaado dad xilo isqaba ha noqdaan ama xaaraan ha usii dheeraato oo gogol dhaaf ha noqdo marba hadduu xiriir gogol iyo galma yimaado waa gudasho shahwadii oo toos ah soonka way jebisaa iyadoo dadbanna way jebisaayo hadduu qofkii shahwadii isaga keeno si kale oo waxaa fuqahadii iyo carabigu ay yidhaahdaan istimnaha ama jalda camiir ay yidhaahdaan soomaaliduna siigaysiga yidhaahdaan qofka hadduu shahwadii isaga keeno fal isagu uu leeyahay sax galma iyo gogol toosa ma aha laakiin waa gudasho shahwo oo dadban weeye sidii cubnadii iyo cabitaankii dadbanaa ay cunnada iyo cabitaanka tooska ah lamidka u hayeen ayay middanina shahwadii gudashadeedii iyo galmadii tooska ahayd iyadoo gudasho dadban ah weeye oo isla macnihii iyo baahidii daboolaysa saa darteed midda tooska iyo midda dadbaniba soonka way jebi